السلام عليكم أصحاب قالي سو دواده وصاحبكين وجه wax kale maanta kaamiradu waxa la hor tagnay saaxiibkeen Feriin Dhale ama Dooli oo gym oo ku elmitay tagno hobja oo ku jira saaxiibka ala beet qaran ii socoto ila saaxiib ayada ku jirtaa wallahi wajh wax kale waxa iri Feriin Dhale waa bush aba sameeyusa koofiya ku gashan foodam ya waxa ciyaan mushaar ma kamid tahay irido markaas uu yiri maya saaxiib ee koofidan madaxa ku celiyo yiri saaxiib waxa iri bush abtaan iyo bush abta guriga ka waran war wuxuu yiri waa tahay bush abta guriga ma sameeyo yiri waxa waa nin حق lagu leeyahay oo waajib saareeyaha ahaniyo ina almiitay oo adeeg iska dhigo oo bir iska dhigo waa yiri qoftan hadda imaayo almiitada imaanayniyo jimka waa kaamirada soo ya asasaya amal ababa waxaan ka soo baxmiya ma saburo waay saaxiibkii Feriin Dhale koofida waaba gartay madaxa ku celiyosaay buumadan yarista ah oo ciyalka inay ku weys qaataan oo bilisad waxa soo qaadata il saaxiib iyo iskaalshadan reey aqraadka saaxiib afaarahan gab ka dhaho yiri afaarahayga waaye waxa waay waa ku heesaa iswaaga oo yiri ayra ugu jirtaa wallah waxa iri warniyahow tan kaleeto حقا lagu leeyahay waajibana ku saaran oo maalkan ay arkay sida ku horiyaan abtiyo say wax yeel rabtaa yiri markaas oo yiri maalkan waxa waaye hadaan ma aragtay mudalkiisa marsin aqra waa lay weydiiha oo maleeya marka waxa rabaa yiri inaan is adkeeyo oo ma aragtay aan iska dhigo adeeg iska dhigo yiri libaax inaan iska dhiga rabaa saas darteeda jiibka ugu jira maxaa ku yabadnaa yiri arooskan marka aroosta kadib warniyo wajh wax kale waxa igu darneed kula habeen ani saaxiibtay awreey ka imaanay oo ma aragtay abaashaal ibalaas aadnay xaafada imaanay waxay tiri baby waa xogaa waa caajisanahay inuu jinni igu almitay amala oo qabtaa duudka dhan ay xanuunoy kaale igu istaagno bis way seexatay aniga waa koray waa ku istaagay anoo kor saaran isla markii waxay taagan tahay baby Feriin Dhale on maxaa kugu dhacay ala qeylay markaas waxay tir kaal ugu istaagno mudooyo maxaa ii dhageysay war waa kugu taaganahay say waa wadaayro kugu taagana war ku arkooy kula ku dareemoy maalinkaas wixii ka dambeeyay waxa ku khasbanaaday inaan soo kireeyay Feriin oo ayada duudka ugu istaago bis waxa waaye laakiin sida kale xaaskayga aniga waa ku qaracsanahay abu waxa kale igu daran nimankan la yiraahdo human rights watch ama kuwa xuquuqul insaanka u doodaan 4 warqada ila taban taagan yihiin waxa waaye ma lagu qasbay sidaan ma tahay hawsha ma ka soo bixi kartaa ma ku caawina say caawiyaan nimanina nagtiisa u caawiyeen aniga labadaas arna igu badneed laakiin waa ka gudbay waxa waaye dadku waxay rabaan ay dhahaan dadka qaar waa ay caayaan dadka qaar waa ay hambaliyeen waa soo dhaweeyeen marka wax kaasa wajh wax kale Soomaali Maxamed Fawadaha laga daayo ninkan waa nin balaay ka dhacday waa u jeedin biraha uu qaado waa biraha ayada ay qaado sacabal taada kale jilbaha lagu hayaa biraha xariif waa ninkan waxa la yiraahdaa dhimanaysiin dhararka waa la iska duwaa ugu dambeyntii saaxiibkii Feriin Dhale wuxuu taagan yahay war maalkan mudankiisa waa marsii karaa Soomaali Maxamed ay afaareyga ka baxa shubkan sharafta leh waa shabdari karaa shibiga dhahay shaadin yahay shurgiin ku raaci Soomaali Maxamed marka ii soo duceeya aniga caay idinkama mudni ina ii duceysina idinka mudanahay nin shubkan inuu shaafiyo laga sugaaya ahay waa u jeedin qoftaan waa ajirkeeda waxa u qabtaa 6 anigo saqiirin inay ku duugayiin dabadana madax inuu ka soo taagaya u qabtaa marka nimayahow ii soo duceeya qoftaan waa jeclahay kama maarmo waxa waa ninka ugu nasiibka badan adduunka ahaaba adduunkan Afrika kaliya isku mileeyay ninka adduunka ugu nasiibka badan ahay maalkaana ma aragtay iyal haduu Ilaahay ku rooyahay Ilaahay waa ii gargaaray marka nimayahow foodada iga daaya ii soo duceeya waxba hay caayiraha marka dambe waxa iri warniyow okay ala alkayga daari Soomaali waa gudbiyaa iri qoftiya weydii war qofiya waxa iri kan saa u yaal ina dishma ugu tala gashay isla marka qofku waxa dhahday qaraar qaja karon waraala wuxuu dhahay Feriin Dhale wajh wax kale ciyalka xaafada igu salaan hana soo gaadin mar